السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين إلى ما تكله وعشر كينا لوات عجلة لو يقانا وبولت عجلة لو يقانا بولت عشر كيسي لوات أيان قلنا مانت إن شاء الله يا فرتن كسؤالات ونسكدي دونا إن أن شرحه سيدي عدد سؤالها خفار هلكن إن كمان موتين دونا. De verkeersregelaar geeft hier een teken aan het verkeer om de snelheid A. te verminderen, B. te verhogen. su-aasha inoogu horeysa cashirka labaad ee cajalada buletka waxaa la yidhi the verkeersregelaar trafikada ama qofka haga wadada geeft hier een stopteken of geeft hier een teken wuxuu ku siinayaa ishaaro mise tilmaam aan het verkeer wuxuuna siinayaa cidda wadada isticmaalayso oo loo yaqaano verkeer ama weggebruikersba om de snelheid si ay xawaarahoodu te verminderen ay u soo yareeyaan oo ah falaatan hadaa aragto iyo gacantu taagay waxay ka mid tahay ama macnaheedu tahaybo xawaaraha hala yareeyo qaboojiya xawaaraha yareeya ama snelheidka ama orodka yareeya insha allah waxaan dooranaynaa marka midda bida wuxuu leeyahay xawaaraha kordhi mana hantaa waa mid khaldan. Wat betekent dit bord? A. Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden. B. Versmalling of einde vluchtstrook. C. Einde maximumsnelheid. su-aasha xigta waxaa la yidhi what betekent dit board yacni macnaha boorkan oo madowga iyo caddaanka ah muxuu yahay macnihiisa boorka madowga iyo caddaanka ah waxa weeyaan waa bay fresmolin yareyn lasoo yareeyey of ama ainda fluxstroke ama inay kaa dhamaatay stroga loo yaqaano fluxstroke oo ah hadday ku qabsato arrin emergency ah oo aadna highwayga saaran tahay waddada rektiga jirto oo loo yaqaano fluxstroke marna loo yaqaano speed stroke oo haddii gaari kaa halaabo ama xaalad degdeg ay ku qabsato aad istaagi lahayd ama haddii speed stroke uu noqdo oo ay jirto fila oo aad isticmaali kartid loo yaqaano markaane speed stroke taa ayaa loo yaqaanaa boorkan waxayna ka dhigan tahay macnihiisa haddaad boorkan aragto iska ilaali fluxstroke waa lasoo yareyn doonaa ama wayba kaa dhamaan rabtaa waana bay. Geldt deze waarschuwing alleen als de weg nat is? su-aasha xigta boorarka oo saddex geeska ah ama sambuuska ah oo dhinaca mudaca ah oo kor jiro oo haddana wax lagugu sawiray ama qoraal ama sawir lagugu sawiray waxaa loo yaqaanaa waarisqowingsborden boorarka digniinaha boorarka yacni kaga digaya wax waxay noqdaanba marka waxaa la yidhi su-aasha waxay tidhi kheldayda waarisqowin miyuu khuseeyaa digniintan waayo waa digniin waxbaa lagaaga digayaa miyay khusaysaa digniintani alleen keliya als the weg nat is hadday waddadu qoyaan tahay keliya als the weg hadday waddadu nat qoyaan tahay keliya marka waxaan leenahay hadday waddada qoyaan tahay ama ay tahay waddo biyo ama roob da-ay oo kale tahay keliya ma khusayso haddii ay waddadu laamiga uu cusub yahay amase daamurka la sameeyey mar dhow macnaha la dhisay oo kale ay tahay xataa uu khuseeyaa boorkani because markii laamigu cusub yahay slip khivaar ayaa macnaa arki kartaa boorkan waxa weeyaan iska jir waa slip khivaar waa meel lagu taraarixi karo ama slip ahba hadduu baraf jirno sidoo kaleta kadalik waa waddo oo aad ku taraarixi karto kale marka waxaan leenahay digniintani ma khusaysa keliya hadday waddada qoyan tahay laakiin wax kale ayaa macnaha la jiro hadda waxaan leenahay marka ney.
Bij welke splitsing moet u bestuurders van links verwachten? A. Alleen splitsing A. B. Alleen splitsing B. C. Splitsing A en B. waxaa la yidhi su-aasha xigta by welka splitsin yacni qaybteeba mood ayaa ku khasban tahay adiga ama ay tahaybo bestuurders waa darawaliin van links verwachten ayaad ka sugay mise ka filaysaa in ay darawaliin dhanka bidixda kaaga yimaadaan inay darawaliin ama wax wadaayo baaskiil mooto baabuur ama gaari ay kaaga imaadaan dhanka bidix marka boorkan waa lagu wareeraa isleeyahay sawirkan oo kale midka aaga ah waxaa ku yaal boor loo yaqaana richtingsweg boorka richtingsweg ah meesha falaarta ay u jeedo cid kaagama imaan karto laakiin meeshay ka jeedo yaa dad wad ka filaysaa cidda kaa imaanaysa waxa weeyaan waa bestuurders waa darawaliin midka beyda ahna asiga links waa lagaaga imaan karaa midigna waa lagaaga imaan karaa marka waxaan leenahay midka beyga ah yacni midigta waa dhankan midig waa lagaaga iman karaa bidixna waa lagaaga iman karaa bidix dhanka kale waay marka dadka wax macquul in la isku qaldaan labada boor inay hal wado tahay maya horta waa hal wado laakiin waa laba sawir oo lagu macnaha oo laba boor macnaha lagu kala saaray waa hal sawiro laga qaaday meesha sawirna boorka lagu saaray loo yaqaano verplichtrijrichting oo hadda linksaf ah iyo sawirna lagu saaray richtingsweg waxay ka dhigan tahay marka in ay tahay laba wado kala nooc oo kale marka qofku wuxuu isleeyahay hadduu qof inta qofka iga imaado inta ma soo geli karo maya sidaa maahan waa laba wado kaleeta ayaa loola jeedaa marka waxaan leenahay maadaama laba wado tahay qaybtee baad ka filay bestuurders inay kaaga yimaadaan dhanka bidix qaybta beyda ee weeye waayo boorkan oo ah verplichtrijrichtingka dhanka bidix waa lagaaga iman karaa dhanka midig waa lagaaga iman karaa adi aa lagu amray inaad u laabato dhanka bidix oo keliya dhan walba waa lagaaga iman karaa hadduu boorkan yahay kii kaleeto oo ahaa khayla pailka ama falaarta oo jaalaha ay tahay waa la mid marka mar walba adi midka aad ku tashanaysid waa midka balawga ama buluuga afargeeska ah dhinka ay falaarta u jeedo cidna kama iman karto haddii aanan onderboard uusan ku yeelin onderboard waa boor hooseeyo oo caddaan ah iyo sawir iyo qoraalna lagugu sawiray haddii onderboard inta lagu dhigo lagu dhaho baskiil iyo macnaha broomfitska waa laga soo reebo la yidhaah marka waxa weeyaan waxaa ka hor imaan karo baskiilimo iyo broomfits darum markaas waa ku tashanaysa laqatan waa plain waa keligii marka waxaan leenahay sawirka uu macnaha tahay in laga hor imaan karo waa midka beyda keliya insha allah waxaan leenahay marka alain splitting bay Welk bord geeft verkeersdrempel aan? A. Bord A. B. Bord B. C. Bord A en B. waxaa la yidhi boorka ama su-aasha xigta welke boorkee mise calaamadee geeft sheegaysa verkeersdrempel aan verkeersdrempel waxaa loo yaqaanaa askari jif utaqaana soomaalida waa midkan oo halka kurtun mise halka naas leh kaas ayaa loo yaqaanaa verkeersdrempel kan kaleetana waxaa loo yaqaanaa wax la dhaho slecht wegdek kan kaleeto oo labada kurtun mise labada gees ka jeeda waxaa loo yaqaanaa slecht wegdek midka beyda ah ayaa loo yaqaanaa askari jiif oo ah verkeersdrempel waana bey U wilt rechtsaf. Moet u de voetganger voor laten gaan? su-aasha xigta waxaa la yidhi waxaad doonaysaa u wilt rechtsaf adiga waxaad rabtaa inaad u laabato midigta moet u de voetganger voor laten gaan ma ku khasban tahay adiga ah oo gaariga in uu qofka lugaynayo uu kaa hormaro waxaan leenahay maya waayo option mise ama reeqal oo ku leeyahay ama oo kaaga lahan karo ma jira halkan intii uu taagan yahay halkan ayuu rabaa maya
voetgangerka waa inuu lahaadaa zebra pad ama waa in uu aad aragtaa dhabarkiisa mise wejigiisa oo kale markaad aad laabanaysid laakiin haddeertaan intuu taagan yahay halkan uu rabaa adiga cidda kaa leh waa bestuurders oo keliya adiga waxaa ku hayo hightand adiga waxaad siinaysaa bestuurders die van rechts komen en van links komen waa darawaliinta ka yimaaday midig iyo bidix unbaa kaa leh waqti xaadirkan marka waxaan leenahay nay nagama laha voetgangerka Welke volgafstand houdt u aan voordat u gaat inhalen? A. 1 seconde. B. 2 seconden. C. 5 seconden. Su-aasha xigta waxaa la yidhi welke volgafstanden houdt u aan voordat u gaat inhalen volgafstand waxaa loo yaqaanaa gaariga ka horeeyo masaafadaad ku dabagalaysid meeqa ayay ahaan kartaa markaad rabto inaad inhaal garayso waxaa la yidhi 2 seconde weeyaan volgafstand waxaa loo yaqaanaa dabagalka gaariga ka horeeyo intaad ku dabagalaysid ayaa loo yaqaanaa nafaaska inta kuu dhexaysa adiga yacni gaariga ka horeeyo iyo adiga inta dhexdiina ku jirto oo nafaas ah mise masaafo ah ayaa loo yaqaanaa volgafstand waa masaafada dabagalka oo gaariga ka horeeya ku dabagaleed marka intaadan inhaal samaynin ka hor meeqa afstand ayaa u baahan tahay oo second ah waa 2 second marka waxaan dhahaynaa welke volgafstand houdt u aan voordat u gaat inhalen waa 2 second su-aasha xigta insha allah Welke volgafstand houdt u tenminste aan bij een snelheid van 100 km per uur? A. Ongeveer 35 meter. B. Ongeveer 55 meter. C. Ongeveer 85 meter. Su-aasha xigta waxaa la yidhi welke volgafstand houdt u tenminst aan bij een snelheid van 100 km per uur yacni masaafada dabagalka aad haysanaysid ama aad ilaabsanaysid ugu yaraan tenminst aan bij snelheid van 100 km per uur yacni volgafstandkaada ugu yaraan meeqa ayuu noqon karaa markaad ku wada 100 markii mitir ahaan lagu dhaho oo snelhead ahaan lagu dhaho waxaa sameynaya haddii 100 tahay 100kaad kala jare 5aad ku dare haddii saas aysan ahayn su-aasha ugu dhow oo kalabarka u dhow ayaad dooranaya haddeertaan waxaan ku wadnaa 100kan kala jaraynaa 5 baan ku daraynaa waxaan leenahay marka ongeveer qiyaastii 55 meter yacni gaariga hore iyo aniga dhexdeena gaarigaas hore iyo dhexdeena inay ku jirataa loo baahan yahay 55 markii aan ku wadaayo 100 hadday tahay 80 waad kala jare 45 hadday tahay 120 waad kala jare 65 hadday tahay 130 waad kala jare 75 ay noqonaya 70 waa 70 insha allah waa B Overdag door regen is het zicht slecht. Welke verlichting mag u voeren? A. Dimlicht. B. Groot licht. C. Dimlicht en groot licht. waxaa la yidhi overdag maalintii mise maalin cadeey door regen sababo keentay ama siyaabo keentay roobka regen waa roob is het zicht aragtidu slechte way yar tahay welke verlichting nalkeeba mag u voeren aad daari kartaa mag aad daari kartaa weye voeren aad daaritaanka mag aad lagu ogolay inaad daarto hadday maalintii aragtida ay xun tahay waxaa lagu ogolyahay hadduu roob da'ayo waa keliya dimlicht nalka weyn loo yaqaano qoladlichtiga nooit lama daaro maalin Onder welke weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan 50 meter mag u het mistachterlicht laten branden? A.
bij regen en mist. B. Bij mist en sneeuwval. C. Bij regen en sneeuwval. su-aasha xigta waxaa la yidhi onder welke weerisomstandigheden yacni jawiga oo xaaladda jawiga oo keeba ah ayaa ka dhigo die Hitzicht taasoo aragtida ka dhigo yacni beperken yacni aragtidaada ayay ka dhigta macnaha waxaa loo yaqaanaa yacni waa beperken way soo yareyn kartaa tot minder ayna ka dhigi karta weli in ka yar dan 50 meter 50 mitir ka yar mahu waxaa lagu ogol yahay het mista achterlicht nalka ceryaamada dambe laata branden inaad shidato yacni jawigaas waa keeba jawiga lagu ogol yahay inaad daarato mista achterlichtiga waa weliba akhtar waa keliya for maahan oo 50 mitirna ay aragtidaadu ka yaraato jawigee baa lagu ogol yahay waxaa lagu ogol yahay insha allah by mist waa ceryaamo unsnewval iyo roob markuu da'ayo sorry iyo markuu da'ayo baraf weeye by mist unsnewval weligeeda ma noqon ama ma ahan regen ma soo geli karo waxaa weeyaan keliya by mist ceryaamo unsnewval iyo markuu baraf da'ayo waxaa leenahay marka b oo ah by mist unsnewval mist markuu jiro iyo snewval waxaa saxayda marka insha allah bayda hadda marka waxaa saxe by mist unsnewval. De bandenspanning is te laag. Wanneer verbruikt uw auto meer brandstof? A. Lage snelheid. B. Hoge snelheid. C. Altijd. waxaa la yidhi the banden spanning lugaha banden spanningna waa aryada okay aryada lugaha istilaakh aad bay u hooseysaa zaid wanneer goortee ama goormee verbruikt ayuu isticmaalayaa auto gaarigaada meer brandstof yacni shayga wax gubo oo baasiinka laga wado goormuu isticmaalayaa baasiin badan haddii lugtaada aaryadeeda yar tahayba yacni jumla lagu hormariyey kadibna su-aal baa lagu xijiyey waxay ka dhigan tahay marka lugtaada haddayba mataqaana aariyada ku yar tahay ama ay macnaha laaq tahay goormuu marka isticmaalayaa gaarigaada baasiin badan hadduu gaariga snelheadkiisa laaq yahay ama xawaarahaada oo yar yahay wuu isticmaalayaa baasiin badan hadduu xawaarahaada sareeyane wuu isticmaalayaa baasiin badan marka waxaan leenahay labaduba altide mar walbo adiga aad wado ama snelheadkaada ama xawaarahaada ha zaid ha ahaado mid sare ama xawaarahaada mid hoose ha ahaado labadaba wuxuu isticmaali doonaa insha allah baasiin badan waa altide. De beslissing om in te halen is afhankelijk van A. Alleen de ruimte tussen de voertuigen. B. Alleen het onderlinge snelheidsverschil. C. Het onderlinge snelheidsverschil en de ruimte tussen de voertuigen. su-aasha xigta waxaa la yidhi the beslissing go-aanka ama go-aan qaadashada om intihalen oo aad gaari kaleed ku garmarisid amaad ku dhaafi rabto ama aad ku baasgaraynaysidba is afhanklig fan waxay ku taagan tahay mise ku xiran tahay waxaan leenahay alleen the ruimte tussen de voertuigen uu yidhi keliya waxay ku xiran tahay nafaaska ama spaceka u dhexeeya labada gaari ama midda ku xigta waxa weeyaan alleen het onderling snelheidsverschil xawaaraha isbedelka xawaaraha dhexdiina ku jiro yacni orodka oo gaariga aad dhaafaysid iyo adiga orodkaada inta macnaha ay kala yihiin difference ay macnaha ku kala duwan yihiin marka waxaan leenahay labaduba het onderling snelheidsverschil xawaaraha macnaha kala duwanaanshaha xawaaraha dhexdiina ku jira iyo nafaaska oo dhexdiina ku jira amaba idin dhexeeya ayay ku taaganta go-aan qaadashada inaad gaari kala dhaafto. Een bus bij de halte geeft aan te willen wegrijden.
Wanneer moet je de bus voor laten gaan? A. Altijd. B. Als de halte buiten de bebouwde kom ligt. C. Als de halte binnen de bebouwde kom ligt. waxaa la yidhi in bus by the halta bas oo taagan meesha loo yaqaano bus haltiga ama meesha baska istaago qaybta aan tibila wegrijden wuxuu kuu sheegayaa in uu dhaqaajiyo doonaya haltuu taagnaa qof buu dhigay mise qof buu qaaday wuxuu sheeganayaa inuu marka baxuu rabaa oo wuxuu daaranayaa fareejada marka wanneer goormee mud uu adiga aad ku khasban tahay the bus for la taqaan inaad hormarido ama uu ka hormaro baska waxaan leenahay midan als the halta haddii haltadu ay ku taalo magaalada gudaheeda waxaan leenahay als the halta haltadu haddii haltadu binan ay ku taalo gudaha the bebouwde meelaha dhisan gudaheeda licht ay ku taalo weeyaan marka haltaha markay ku taalo gudaha ayuu baska kaa leeyahay haddii baska aad ka hor imaanaysid ama haddii aad taagan tahay gadaashiisa uu sheegto waan dhaqaajinaya labada buu kaa leeyahay waxaan leenahay marka alleen of als the halta binnen the bebouwde ligt haddii haltada ku taalo marka magaalada banaankeeda kaama lahan als the halta buiten the bebouwde ligt kaama lahan U rijdt op de autosnelweg en ziet ver voor u een stilstaande file. Wat is het meest veilig? A. Terugschakelen en snelheid aanpassen. B. Waarschuwingslichten ontsteken en tijdig remmen. C. Snelheid aanpassen en vlot doorrijden. waxaa la yidhi u rijdt op de autosnelweg waxaad ku wadaa snelwega mise highwayga aan ziet waxaad maaragtay ver voor u hortaada hore en stilstaande file yacni filo taagan zaxmad mise jam taagan aanan la socon ayaad aragtaa what is het meeste veilig maxay tahay waxa ugu badbaadada badan leh what is het meeste veilig maxay tahay waxa ugu badbaadada badan leh waxa ugu badbaadada badan waxa weeyaan waarschuwingslichten nalalka digniinaha inaad daarato nalalka loo yaqaano waa digniinaha inaad daarato oo ah fareejooyinka afarta ah oo labada dhinac ka daarma oo dambe iyo hore waxaa loo yaqaanaa nalalkaas waa nalalka digniinta oo loo yaqaano waarschuwingslichten ontsteken daar nalalka aan tijdig remmen waqti fiican fariinka qabo istaaji gaariga yacna waa istaajina gaariga nalalka waa daaran nalalka waxaad u daaranaysaa waxay tahay baabuurta kaa dambeyso aad u sheegaysaa tilmaam ah aad leedahay hayee isilaaliya waxbaa jiro ama filaa jirto ama waxaa jiro ii sheegay shil wixii raqdabo marka filada waxaa meest veilig ah ama ugu badbaado badan lay tahay in aad daarato nalalka fareejooyinka kadibna aad waqti fiican fariinka qabato waxaa leenahay marka b Hoe ver mag de ondeelbare lading aan de zijkanten uitsteken? Antwoord. su-aasha xigta waxaa la yidhi hoe ver mag ondeelbare lading yacni lading waxaa loo yaqaanaa waxaad qaadayso alaab maxaa la yidhi marka hoe ver mag meeqa intee la eg ayuu noqon karaa la ogol yahay the ondeelbare lading yacni ondeelbaar waxaad qaadayso oo aanan kala go'i karin yacni ondeelbara wax weeyaan kalama go'i karo haddii aad wato waa jaranjaro oo kale ama biraha daaha oo kale ama wax kale hadda baakataan oo kale inta saaran waxay ku jirtaa gaariga waxaana laga saaray waxaa loo saaray si balaar camal marka haddii aad sidatan u qaadaysid waxaanan kala go'i karin meeqa ayaa la ogol yahay in labada dhinac uu kasoo jeedo jawaabta marka adaa laga rabaa waxaan leenahay 20 centimeter waxaa la ogol yahay marka 20 centimeter in uu gaariga kasii jeedo ka badan lama ogolo dhinaca kale sidoo kaleete 20 centimeter macnaha waa 20 centimeter inuu kasii jeedo ka badan lama ogolo marka waxaan leenahay hoe ver mag de ondeelbare lading aan de zijkanten uitsteken meeqa ama intee leeg ayaa la ogol yahay shayga aad qaadaysid oo aanan kala go'i karin
inuu kasii jeedo labada dhinac oo gaariga jawaabtan waxay tahay 20 centimeter insha allah. U wilt de autosnelweg verlaten. Op welke afstand van de uitrijstrook moet u richting aangeven? A. Ongeveer 600 meter. B. Ongeveer 900 meter. C. Ongeveer 300 meter. Su-aasha xigta waxaa la yidhi u wilt waxaad doonaysaa adiga de autosnelweg verlaten inaad ka baxdid highwayga ama snelwega op welke afstand yacni masaafo noocee ah oo tee ah van the outrijstrook intaan la gaarin outrijstrook waxaa loo yaqaanaa outvoegstrook mise outrijstrook waddada looga baxo highwayga ayaa loo yaqaanaa outrijstrook moet u richting aangeven yacni maadaama arta inaad highwayga ka baxdo intaan la gaarin waddada highwayga looga baxo meeqa mitir ka hor ayaa lagaa rabaa ama afstandka oo lagaa rabo muxuu yahay inaad sheegato jiheeyahaada ama farajo aad daarato aad sheegato inaad ka bixiso highwayga waa meeqa mitir qiyaastii ama intee leeg weeye waxaan leeyahnaa ongeveer qiyaastii 300 meter oo siya yacni outrijstroga intaan la gaarin 300 mitir ka hor ayaad maxaa ku yaraa aad sheeganay jiheeyahaada waana waxaadna ku tirin kartaa boorka loo yaqaano oo inta ku yaal hectometerka loo yaqaano yani halkii hectometer waa wuxuu macnaha u yahay macnihiisa inay tahay 100 meter halkii hectometer board mise bal waxa weeyaan waa 100 meter haddaa 3 xabo ay kaaga dhiman tahay outrijstroga waxaad ogtahay in 300 meter kaaga dhiman tahay qiyaastii that's why waxaa laga rabaa marka inaad shidato marka jiheeyahaada mise richting aanwayserka loo yaqaano fareejada inaad daarato richting aanwayser ayaa loo yaqaanaa 300 mitir ka hor ayaa daaran insha allah. Wanneer mag u lichtsignaal gebruiken? A. Tijdens gevaar. B. Politiecontrole waarschuwen. C. Nooit. waxaa la yidhi su-aasha xigta wanneer goormee mag uu ayaa lagu ogol yahay adiga lichtsignaal inaad mataqaana ishaaro mise calaamad oo nal ah khabraykan isticmaasho yacni inaad nalka weyn aad erag qof u siiso kaleete goormee loo ogol yahay tijdens gevaar markuu jiro halis markaad aragto goortay jirto halis yacni halis baa aragtay dad baa hortaada taagan oo sameynaya halis inaad mataqaanaa qofka halis sameynaya aad oga digto mise aad ka celiso ayaa loogu talagalay inaad hoon u yeeriso ama inaad mataqaanaa nalka aad erag u siiso aad ogu baaqdo aad leedahay iska jira halis sameynaysaa marka tijdens gevaar goortay halis jirto oo gevaartan waa halis insha allah waxaan leenahay a. U ziet spelende kinderen en geeft een signaal met de klakson. Mag dat? waxaa la yidhi waxaa aragtaa uzid waxaa aragtay spelend kinderen caruur ciyaarayso spelend waa ciyaartii kinderna waa ilmihii an geeft waxaana siisay in signaal ishaaro tilmaam ama calaamad met klakson waxaadna aad ku dartay hon klakson waxaa loo yaqaanaa honka bibibta ayaa loo yaqaanaa klakson marka makdaad ma la ogol yahay waa haa macnaa caruurta inaad ugu digto hoona u yeeriso ama liqsigan aad u daarto labadaba waa lagu ogol yahay waxaan leenahay marka insha allah haa. Wie is strafbaar als op de weg met een voertuig een wedstrijd wordt gehouden? A. Alleen de bestuurder. B. Alleen de eigenaar. C. De bestuurder en de eigenaar. su-aasha xigta waxaa la yidhi wie is strafbaar yaa ciqaab macnaha mutaysan kara yaa ciqaab mutaysan kara wie waa yaa ama keeba strafbaar ciqaab macnaha mutaysan kara alles op de weg haddii waddada met een voertuig oo gaadiid mise gaari een wedstrijd wordt gehouden yacni baabuur haddii aad tartan aad ku samayso yaa ciqaab macnaha la saari karaa oo kalete laba gaari ama waa gaari waxaad samayn rabtiin oo kaleeto waa tartan ayaad samayn rabtiin waxaa loo yaqaanaa wedstrijd waxa weeyaan tartan
macnaha waxaad ku tartamaysiin gaari anaa kaa ordan kaleeto markaan saas si kale aan u dhigo yaa marka ciqaab macnaha mutaysan karo waxaa ciqaab macnaha mutaysan karo the besturer qofka wadaayo waa darawalka and the eigenaar iyo qofka gaariga markaa leh ayaa ciqaabta mutaysan kara labadaba waxaan leenahay idinka say marka insha allah. U rijdt met een aanhangwagen. Heeft dat invloed op de verlichting van de auto? waxaa la yidhi u ride met een aanhangwagen waxaad wadaa masaajidaysaa waxa loo yaqaano aanhangwagen oo kan ah heeft dat invloed taasi miyay leedahay invloed waxa weeyaan saameyn op the verlichting miyay ku leedahay saameyn yacni nalalkaada op van de auto gaariga yacni baabuurka nalalkiisa saameyn miyay ku leedahay haddii aad jiidaysid aanhangwagen alaba saarto haa weeyaan waayo nalalka way daciifayaan adii ama hadda gaariga aad jiidayso kaleeto xooga dhan gadaal buu macnaha uu aadaya marka nalalkaada waxbaa iska bedelaya saameyn bayna ku yeelan kartaa. Op welke weg mag u 100 kilometer per uur rijden? A. Weg A. B. Weg B. waxaa la yidhi op welke weg wadadee mag u ayaa lagu ogolyahay adiga 100 kilometer per uur rijden inaad ku wado saacadii 100 wadadee lagu ogolyahay waa wadada aada ah oo dhexda rinjiga cagaarka ka marsan aada ayaa 100 lagu ogolyahay midda kaleete waa wada 80 waa wada lagu ogolyahay takhtiq mise 80 tan aadayhne waa 100 ama 100. U wilt invoegen. Moet u uitvoegende bestuurder voor laten gaan? halkan waxaa la yidhi gaariga cadka elka adaa wata mar walbaba u wilt invoegen adiga waxaad doonaysaa inaad gasho highwayga farajada waxawaaye waxaad u daaratay inaad gashaad doonaysaa invoegen waxa weeyaan inaad gashaad doonaysaa okay moet u marka adiga ma ku khasban tahay uitvoegen de bestuurder darawalka gaariga guduudan wato oo sheeganaya inuu rabo inuu ka baxo highwayga inaad siisa miya inuu ka hormaro moet u the uitvoegen de bestuurder voor laten gaan maadaama adiga galis highwayga hadda iyo kow aad gali rabto kan ka baxaya ayaa kaa leh waxaan leenahay markaa the uitvoegen de bestuurder moet voor laten gaan inaan siino weeyaan qofka ka baxaayo highwayga aniga inaan sugo weey insha allah. Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 autobus, 2 bromfietser, 3 fietser. B. 1 fietser, 2 bromfietser, 3 autobus. C. 1 bromfietser, 2 fietser, 3 autobus. waxaa la yidhi su-aasha xigta what is here the juiste volgorde sida la iskugu xigxigo van voor laten gaan oo tahay in loo kala hormaro sidee waaye isgoos waa tan waa kruispunt waxaa loo yaqaanaa gelijkwaardig kruispunt isgooska loo wada siman yahay sinaantan waxaa laga wadaa wax boor ah xeer ah ama hightown ama stopboard ama forangs weg maahan ama forangs boardbo marka waxaan u eegaynaa meeshaan qofkii ama ciddii ka imaada midigta inaan siino haddeertaan baaskiilka iyo mootada isku waddo ayay saaran yihiin laakiin dhinaca midig waxaa joogo baaskiilka waxaan horumarinaynaa baaskiilka waxaa ku xigi doono waa bromfitska oo mootada waxaa inoogu dambeeyo gaariga oo baska ah oo weyn asiga wuxuu doonayaa inuu soo galo jiiro oo dheer oo loo yaqaano langbocht marka waxaan siinay aniga fits bromfits autobus waana bay. U wilt hier linksaf. Moet u de fietser voor laten gaan? halkan waxaa la yidhi u wilt hier linksaf waxaad doonaysaa adiga gaariga wato elka ah inaad u laabata bidixda moet u ma ku khasban tahay adiga the fietser voor laten gaan inuu baskiilaha kaaga yimaadeen dhanka midig inaad siisa miya
adiga waxaa ku heeyo Hightown asna waxaa haya Hightown laakiin maadaama labadiinaba ay hayaan hal qaanuun isku mid ah oo asigana haddana oo kaaga imaaday dhanka midig waad siinaysaa haddii lagu dhihi lahay mood the fitzer fola taqaan miyuu ku qasban yahay baaskiiluhu inuu adiga ku horumarsho su-aasha waxay ahaan lahayd nay hadda laakiin waxaa lagu leeyahay baaskiilaha inaad horumariso miya waa haa inuu ka horumaro weye U stopt hier om een passagier mee te nemen. Mag dat? waxaa la yidhi u stopt hier halkaan istaajisay om een passagier mee te nemen si aad qof rakaab ah aad u qaado mag dat ma la ogol yahay waa haa baarkin walbo ad aragto inaad istaagto qof aad ka dejiso dhigto waa la ogol yahay kaliya waxaan la ogoleen inaad meesha baarkin dhigato aad gaarigana ka dhaqaaqdo aad kasoo danaysato taa ayaa lagu diidaya laakiin baarkin walbaba noocu doona ha ahaado inaad istaagtid aad qof dhigtaad macnaha aad ama aad ka qaado waa la ogol yahay waxaan leenahay ya Uw auto met aanhangwagen is 7,5 meter lang. Mag u hier rijden? waxaa la yidhi u auto gaarigaada met aanhangwagen gaarigaada oo aad ku xirtay aanhangwagen gaariga kaleto la jiidayo is 7 meter half lang 7 meter iyo bar ayaad tihiin labadiinaba yacni gaariga macal aanhangwagenka maq uu hier rijden yacni waddada ugu bidixsan ma ku wadi kartaa maya laguma ogolo waxaa leenahay marka nay waxaa la yidhi waxaan leenahay anaga insha allah nay sababtoo ah 7 mitir iyo bar ayuu ka dheerayaa gaariga iyo macal waxa uu jiidayabo loo yaqaan aanhangwagen labada wadaba bidix lama ogolo waa midda midiga uu ku wadaa insha allah su-aasha xigtan adina insha allah tacaala U wilt hier inhalen. Mag dat? waxaa la yidhi u wilt waxaad doonaysaa rabtaa hiir halkan inhalen inaad gaari dhaafto makdaad ma la ogol yahay yacni gaariga cadka waa keena kan ayaa naga horeeyo inaan kan dhaafno waddadan ku dhaafno ma la ogol yahay maya macquul maahan waa arrin halis ah waa khivaarlig waxaan leenahay nay insha allah U wilt linksaf. Moet u de auto voor laten gaan? gaarigeena caddaay waa kan waxaa la yidhi u wilt linksaf adiga waxaa rabtaa inaad u laabato bidixda mood miyaad ku qasban tahay auto the auto fola taqaan gaariga gaduudan oo ka imaaday dhanka midig inuu kaa horumaro miya inaad horumariso miya maya macnaa in uu ka horumaro sorry mood the auto fola taqaan miyaa ku qasban tahay gaariga gaduudan inaad horumarido waa haa sababtoo ah gaariga gaduudan wuxuu ka imaaday dhanka midig waddadan waxay weeyaan waddo oo gelijkwaardig kruispunt waa isgooska sinaanta ama loo wada siman yahay Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 auto, 2 bromfietser, 3 voetganger. B. 1 bromfietser, 2 voetganger, 3 auto. C. 1 voetganger, 2 bromfietser, 3 auto. waxaa la yidhi what is here the juiste volgorde maxay tahay sida laiskuga xigo oo loo kala horumarayo meeshaan sidii loo kala horumarayo waxa weeye ugu horeyn waxaa iska leh qofka soconayo oo isticmaali doono sebraha ama waddada cad ayaa ugu horeey kow waa siga waxaa ku xigo waxa loo yaqaano snorfits mise waa broomfits loo yaqaano ayaa ku xigo sababtee broomfitska wuxuu saaran yahay waddo loo yaqaano afbuigende voorrangsweg waxaa loo yaqaanaa wadda loo yaqaano afbuigende voorrangsweg waxaad ka garan kartaa raystroga oo ku sugan yahay stribyadu way la leexanayaan sidoo kale waxaad ka garan kartaa labadan boor waxay ka hadlayaan inuu saaran yahay mootada voorrangsweg mise waa voorrangskruispunt inuu saaran yahay oo la leeyahay haddii aad leexanayso
adiga ayaa foreign leh kan hoostaas ayuu ka hadlayaan gaariga cadka eh waxaa haysta wax loo yaqaan height hand oo la leeyahay dadka inta inaad ka istaagto weeye cidda inta kaaga imaada midig iyo bidix daarum inuu istaago weeyaan asi marka waxaan leenahay voetganger bromfiets auto waana say Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 auto. 2 blauwe motor. 3 autobus. 4 rode motor. B. 1 blauwe motor. 2 auto. 3 rode motor. 4 autobus. C. 1 blauwe motor, 2 auto, 3 autobus, 4 rode motor. waxaa la yidhi what is here the juiste volgorde maxay tahay halkan sida layskugu xigo oo loo kala lahan doono wadadan waa wado xeer leh ama wado boor iyo haytandeba leh ugu horeyn ciddi leh mudnaanta ayaan u kala qaadinaa mootada kalarka ama koofida bluga ee wadato iyo gaariga caddaanka ee waxay leeyihiin wado loo yaqaano forangsweg waa wadada mudnaanta kan cadka ama gaariga cadka waxaad ka garan kartaa boorka sambuuska ahaa jaallaha ayuu haystaa kan kaleetan waxaad ka garan kartaa oo mootada bluga ah qaabka uu u samaysan yahay ayuu u samaysan yahay adiga mar walbaba labada gaari iska soo horjeedo mise labada gaari iska soo horjeedo isku qanuun mise isku reeqal ayay leeyihiin ama isku xeer ayay leeyihiin marka ugu horeyn labadooda horta baska iyo mootada gaduud hanoo dambeeyaan waayo ayaga waxay leeyihin wax loo yaqaano haytand waxaa laleeyahay ayaga ciddii kaaga imaada midigta iyo bidixda c oo ah darawal ama ah bestewardess marka waxaan leenahay insha allah ugu horeyn waa mootada bluga waayo gaariga caddaanka wuxuu rabaa inuu leexdo qofka tooska markay wadada iska soo horjeedaan ay saaran yihiin inay isku xeer leeyihiin qofka tooska ayaan siinaynaa waxaa laleeyahay marka reekta doorkhande firkiir khatfo yacni firkiirka mise cidda wadada ismaanayso tooska ayaa leh markii wadda saan kale isku yimaado oo iska soo horjeedo midka laabanaya ku xigo marka mootada bluga ugu horeyso kadib gaariga cadka kadibna waxaa ku xigto mootada guduudka oo goolada u dhow oo loo yaqaano koorta boktiga haddana baska oo goolada ka dheer oo macnaha u leexanayo lang boktiga marka labadoodana mootada gaduudka iyo baskana waxay leeyihiin laba xeer isku mid ah hadduu rabi lahaa mootada gaduudka inuu toos aado si lamid asiga ubaan lahaa laakiin haddatan koorta bokti ayuu leeyahay baskan wuxuu leeyahay lang bokt waxaa iska leh mootada gaduuda kadibna baska weeye waxaan leenahay insha allah blauwe motor auto waxaan leenahay blauwe motor auto rode motor autobus waa bay waxa weeyaan blauwe motor waa mootada bluge auto gaariga cadke rode motor mootada gaduudke iyo baska waana bayda U rijdt met een skibox op uw auto. Is dit van invloed op het brandstofgebruik? Su-aasha xigta waxaa la yidhi u rijdt met skibox op uw auto yacni gaarigaada waxaad ku qaadi kartaa ama kuu saaranbo waxa loo yaqaana skibox waxaa loo yaqaanaa markii baraf jirto bahal meelaha barafka lala aado macnaha lagu talaaraxo ayaa loo yaqaanaa skibox ayaa gaarigaada kuu saaran korkiisa is dit van invloed miyay tahay midan aad samaysay mid ku leh saameyn op het brandstofverbruik isticmaalka benziinka yacni benziinkaada isticmaalkiisa ma kordhaya waay wax walbo gaariga ku kordho saameyn buu ku leeyahay benziinka isticmaalkiisa marka is dit van invloed op het brandstofverbruik miyay tahay midan mid saameyn ku yeelan karta isticmaalka benziinkaada waxaan leenahay haa way ku leedahay su-aalaha inta badan lagu dhaho heeft dit invloedne waa ya su-aalaha inta badana lagu dhaho heeft dit invloed tani saameyn bay ku leedahay benziinkaada saameyn bay ku leedahay lugahaada waa haa U wilt hier linksaf. Moet u de bromfietser voor laten gaan? waxaa la yidhi gaariga cadka oo eelka aniga ayaa wadano u wilt hier linksaf waxaad doonaysaa marka inaad bidix u laabato
mud miyaa ku khasban tahay the brumfitzer mootada loo yaqaan foolaa taqaan inaad iska hormarsiiso mise ay ka hormarto waa maya because dhanka bidix ayay nooga imaaday maxaa yeelay dhanka bidix ayay nooga imaaday mootada anaga ayaa dhanka midig ooga imaanay waddadiina waa waddadii loo yaqaanay sinaanta isgooska sinaanta waxaan leenahay marka nay insha allah U wilt de fietser zo inhalen. Mag dat? su-aasha waxaa la yidhi u wilt the fitzer waxaad doonaysaa baskiiluhu zow inhalen sidatan inaad u garab marto u dhaaftood moodo maqdaad ma la ogol yahay waxaan leenahay waa nay ugu horeyn waxaan leenahay nay sababtoo ah baskiiluhu waad ku dhowdahay waxaa wanaagsan in markaad baskiil ama faras ama mooto aad garab maraysid ama aad dhaafi rabto in ugu yaraan ama qiyaastii 1 mitir iyo bar dhexdiina ay ku jiraato marka haddeertaan xawaaraha xooga ama hawada aad bixinaysa sidoo kale inay asi wax u dhinto oo dhaco ama dhinacaada macnaha u soo weecdaa laga yaabaa maadaama uu yahay wax laba lug leh oo haddana aanan awood lahayn marka baskiiluhu sidii tana tagta inaad u dhaafto ma la ogol yahay waxaan leenahay nay waa maya Rijdt u hier in een maximum 30 kilometer zone? waxaa la yidhi right u here miyaad ku wadaa adigu halkani in maximum 30 kilometer zone aagga oo soddonka ugu badnaan loogu talagalay maad ku socotaa waa maya boorkan aagga soddonka maahan waa soddon laakiin boorka waa buluug mise balaw haddaad aragtana balaw waxaa loo yaqaanaa advice snelheid waa xawaaraha yacni lagula talinayo kan waxa waye kii oo talada ahaa laakiin kan kale oo maximumka ah waa mid guduud ku wareegsan tahay waxaan leenahay marka haddeertaan ma ahan midkii maximumka ahaa ee midkii adviiska ee waaye jawaabteen waxay noqonaysaa marka insha allah nay Wat is uw toegestane maximumsnelheid op deze weg? A. 80 km per uur. B. 100 km per uur. C. 120 km per uur. waxaa la yidhi muxuu yahay xawaaraha lagu ogol yahay ugu bannaan inaad waddadan ku wado what is u toegestane maximum snelheid yacni what is u muxuu yahay toegestane lagu ogol yahay maximum snelheid xawaaraha ugu bannaan lagu ogol yahay op deze waddadani waxaa lagu ogol yahay waddadan 80 sababtoo ah haddii ay kaa dhammaato waddo 50 ah aad lagu talagalay inaad ku wada ay kaa dhammaato iyo waddo 60 ay kaa dhammaato iyo waddo 70 ay kaa dhammaato iyo magaalo aad ka baxaysidba afartaas waxaa lagu ogol yahay si automatically ah 80 haddii aanan boor kale lagu siinin hadda waxaan leenahay insha allah 80 U stopt hier om de wegenkaart te bekijken. Mag dat? waxaa la yidhi halkan uu stopped here halkaana istaajisa gaariga om the wegenkaart si aad kaararka waddooyinka ee bikaykan aad u fiiriso maqdaad ma la ogol yahay boorkan wuxuu ka hadlayaa halkan inaad istaagi karto aad samayn karto stillstan waxa loo yaqaan stillstanka inaad istaagi karto waxay ka dhigan tahay inaad qof dhigto qof ka qaada meesha inaad alaab dhigto alaab aad ka qaado laakiin adiga kaarka waddooyinkaad rabtaa inaad fiirsato waddooyinka akhrisato ayaad doonaysaa taa looma yaqaano marka stillstan taa waxaa loo yaqaanaa parking marka boorka wuxuu ka mamnuucayaa halkan parking aad ku dhigin marka ma la ogol yahay meeshan inaad kaarka oo waddooyinka aad akhrisato ama aad fiiriso waa nay maya Mag u hier de langzaam rijdende vrachtwagen rechts inhalen? waxaa la yidhi maq u hiir ma lagu ogolaya halkan adiga adoo inta gaarigan wado langsam rident faraqta waaqan gaariga weyn oo si tartiibka u socdo inaad dhanka midig ka dhaafto rex ma lagu ogolyahay haa sababtee sida caadada ah waa in dadkaad ka dhaaftaa dhanka bidix aad ka dhaaftid waaye aad u samaysid macnaa inhalen laakiin haddeertaan waxaad ku sugan tahay bahasha loo yaqaano waa block marketing dhanka midig ayaad ooga sugan tahay farad autona wuxuu saaran yahay waddada bidixdaade haddii aad ku sugan tahay adiga waddada loo yaqaano waa block marketingka dhanka midig aadna ooga sugan tahay rex waad ka dhaafi kartaa rex waad ka inhal garayn kartaa mise waad ka baas garayn kartaa
ama baba waad ka moodi kartaa waa block marking markaas ku sugan tahay waxaan leenahay marka insha Allah ja waa ha Wat is uw toegestane maximumsnelheid op deze weg? A. 80 km per uur. B. 100 km per uur. C. 120 km per uur. su-aasha xigta waxaa la yidhi what is uw toegestane maximum snelheid op deze weg yacni haddii aad waddo aan hanqwaaqan mise wax jiidaysid oo aadna highwayga rabtid inaad korto boorkan waxaa loo yaqaanaa snelweg mise highway xawaaraha lagu ogol yahay ugu badnaan waddadani waa imisa ama waa maxay su-aashan waxay ka mid tahay su-aalihii oo cajaladan oo la bedelay yani cajaladan oo loo yaqaano bullet waa cajalad horaan hore usoo sheegay su-aalaheeda aad bay u fiican yihiin laakiin dhowr su-aal oo ilaa iyo 5% noqonayo unbaa hadda macnaha lagu soo sameeyey macnaa casri ahaan ama waxba laga bedelay aan dhihi karaa marka su-aashan waxay soo galeen su-aalihii wax laga bedelay inay tahay hadda sanadkan aan joogno oo 2019 ah su-aashan waxaan leenahay waa 90 ayaa loo ogol yahay laakiin cajaladan waxay leedahay 80 maadaama cajaladan marka la sameynay ay ahayd waqti la ogolaa 80 marka cajaladan la mooday kadibna macnaha waa loo kordhiyey haddii aad gaari yar tahay aad waddo aan hanqwaaqan waxaa loo ogolaya inuu ku wado 90 marka ha ku khaldamin adiga haddeertan waa 90 laakiin cajalkan waa 80 waa su-aal oo wax laga bedelay oo laakiin cajalkan cajal hore oo ahaa daarum inaad saas ogaataa la rabaa hadduu ilaha idmo U parkeert hier voor 2 uur. Moet u de parkeerschijf gebruiken? waxaa la yidhi u parkeert hier for 2 uur halkan ayaa gaari dhigatay oo boorkan ah ku sheegayo zona parkier aaga parkinga oo aadna inaad isticmaasho kaarka loo yaqaano parkeerschijf oo lagu gado dukaamada oo adiga halka senti halka euro iyo sentaasha jooga oo loo yaqaano parkeerschijf oo aad u baahan tahay haddii boorkan aragto mise waddada dhexda ee geeska riigada buluug ee leedahay haddaa aragto waxay ka dhigan tahay kaarkan loo yaqaano parkeerschijf inaad isticmaasho oo waqtigaad soo gashay ama soo istaagtay meeshan aad sheegto ku aadiso oo lagu ogolyahay ugu bannaan inaad dhigato 2 saacadood marka su-aasha waxay tahay parkeerschijf inaad isticmaasho halkan ma ku qasban tahay waa haa haddaadan isticmaalin ganaaxaad macnaha lagu diri karaa lacaga lagu ganaxi karaa waa buuta lagu siin karaa marka waxaan leenahay kaarka loo yaqaano parkeerschijfka inaad isticmaasho waa qasab halkan ja U wilt rechtsaf. Moet u de voetganger voor laten gaan? waxaa la yidhi gaariga jaalaha ilka ah waa Kenny u wilt rechtsaf waxaad doonaysaa adiga ishaarada meesha u daarto waxa weeyaan waa dhanka midig waxaad doonaysaa inaad u laabato dhanka midig muut ma ku qasban tahay adiga the voetganger voor la taqaan inuu ka hormaro qofka lugaynayo waa maya adiga ayaa kale qofka lugaynayo wax option ah mise wax xaq uu leeyahay hadda tan ma lahan kaama lahan adiga dadka qaar wax macquul inay ku mashquulaan baashan oo haytandi ay macnaha u moodaan ma haytan bashas hataa hadduu haytandi ku hayn lahaa voetgangerka kaama lahaan lahayn because hadduu ku hayo haytand waxaa kaale keliya waa bestuurders die van rechts aan links komen waa darawalinta ka imaaday dhanka midig iyo dhanka bidix unbaa kaa leh voetganger qof lugeynayo kaama lahan marka dadka qaarkii wax macquul inays dhahaan maxaa ku dhaha falaartan halka maxay tahay ama haytandiga halka muxuu yahay kan haytandiga caadi aad taqaani maa haytandiga caadi waxa weeyaan waa inuu boor halkan kuu dhigaa ama haytandiyo badan inuu hortaada kuu dhiga labadaas mid weeyaan marka su-aashan waxaan leenahay moet u de voetganger voor la taqaan adiga miyaa ku qasban tahay voetgangerka inuu ka hormaro waxaan leenahay maya haddii su-aasha lagu kala bedelo lagu dhaho moet de voetganger miyuu ku qasban yahay qofka lugeynayo uu voor la taqaan inuu adiga ka hormarsho waa haa yacni su-aalaha in lagu kala bedelo laga yaabaa markaa aado CPR-ta haddii saas lagu kala bedelo waxa weeyaan adiga waxaad fiirinaysaa mar walbo maxaa soo horeeya moet u adiga ma ku qasban tahay uuda ama yeeda waa adiga ma ku qasban tahay haddii lagu dhaho the voetganger voor la taqaan waxaa fiirinaya sawirka makaa leeyahay qofkan mise macnaha wuu kaa leeyahay waa fiirinaya hadduu kaa leeyahay haa aa leeda hadduusan kaa lahaynna waa ney haddii laakiin la dhaho uuda halka laga saaro la dhaho moet the voetganger qofka lugeynayo miyuu ku qasban yahay
haddana gadaal lagu keeno adiga for laa taqaan inuu kaa hormaro mise ku hormarsho marka waxay noqonaysaa markaas su-aasha waa nay nay waa yaa sorry marka la dhaho adiga futqangarka miyuu ku qasban yahay inuu adiga ku fasaxo waa yaa waayo waad ka leedahay inuu adiga ku fasaxo weeye haddii lagu dhaho adiga marka futqangarka inaad fasaxdo miya waa nay waayo waad ka leedahay adoo ka leh maad fasaxe waa maya hadda tamka su-aasheena waxa weeyaa nay waxaa la yidhi mut uda futqangar for laa taqaan ma ku qasban tahay qofka lugeynayo inaad hormarido waa maya alxamdulilah wabilahi towfiiq su-aalihii saas ayaa ku jawaabnay waan saxnay dhammaan 40 su-aalood ayay ahaayeen 26 ilaa iyo 65 waana cashirkeeni labada ayuu ahaa su-aalihii kore maanan ka jawaabin waa mid aan ugu talagalay insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'idi doontaan walaalaha reer netherland belgian iyo ciddi kaleto macnaha u baahan inay barato waxaan isleeyahay inaad ka faa'idi doontiin waadna ku mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala